waxaan ka codsanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xasan cabdi barre in baaritaan lagu sameeyo ay ogaadaan dibandaabyooyinkii ku yimid doorashooyinka dalka iyo badqabkii dimuqraadiyadda iyo xorriyadda muwaadiniinta si aysan mar kale u dhicin ku tagrifal awoodeed iyo damac shakhsiyadeed ee lid ku ah hanaanka geedi socodka dowladnimada iyo dastuurka dalka. waxaan kaloo jeclaan lahaa in aan halkan sida walaalkay wasiirka diinta oo waqaafka uu sheegay cumar rooble in aan halkan uga jeediyo shacabka soomaaliyeed hal dardaaran oo muhiim ah. dalkeenna waxaa ku soo badanaya dhaqamo xun oo aad iyo aad u liita haddana ku sii fidiya sida dad sheeganaya darajooyin ay ixtiraamka shacabka soomaaliyeed u hayaan sida shiikh iyo aqoon-yahan. dhaqankan waa in ashkaas loo arko dad macquul ah ay caadaysaan in ay sameeyaan been abuur iyo dacaayado iyadoo carabkooda iyo qalinkoodu noqday wax la ijaarto oo hadba qofkii ama kooxdii dangaar lihi ay kiraysato waana wax ceeb ah dhaqankeenana ku cusub wax saxna maahan waana in laga waantoobaa. marka dhammaan waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed dadka waa inay la hadlaan haddii qofkii sheekh sheeganaya haddii uu aqoon-yahan sheeganayaba. sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in aan yeelanno dulqaad iyo adkaysi. qof kasta oo siyaasadda looga guulaysto waxaa habboon in uu sugto wakhti kale balse aanu naciin bidin waxyaabihii aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay. ugu dambayn waxaan si niyad ah idinkaga codsanayaa inaad si hagar la-aana ula shaqaysaan ra-iisul wasaaraheena cusub mudane xamse cabdi barre si uu u guto waajibaadka qaran. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan howlwadeennada xafiiska ra-iisul wasaaraha cid kasta oo ka soo shaqaysay